Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Qormada waxaan kaga hadlaynaa dhakhtar ku yaala dalka Mareykanka kaas oo looga guuray Rooxaan. Dhakhtarka waxa uu ku yaala magaalada Louisville ee dalka Mareykanka waxaana lagu magacaabaa Waverly Hills Sanitarium oo ka kooban 5 dabaq. Isla markaana dhakhtarku waxa ahaan jiray mid aad u camiroon dad la circiiraya kaas oo si lama filaan u joojiyay hawlaha caafimaad ee waday. Dhakhtarka ayaa gebi ahaanba xidho aan cid gelin waqtigan. waxa kale oo yaab leh qolka yaala dhakhtarkaasi oo salaashii qofka kale aan soo nabad noqonin waana qolka 502 gabar kalkaalisa caafimaad ah ayaa markii u horeysay gashay waxaana la arkay iyada oo dhimatay oo loo maleyn iyadu istishay lama se garanayo sababta ay isu dishay waxaana saas ku dhacday kuwa kale oo ka dambeeyay ilaa uu qolku noqday goob laga boqo hospitaalka ayaa la furay 1910 laakiin waxa dib loo balaaray 1926 oo mar kale la furay waxaana waqtigaas lagu daweyn jiray dadka qaba xanuunka TB-da tirakoobyo la sameeyay ayaa lagu sheegay in dhakhtarkan ay ku dhintaan 64,000 oo qof nus qarni barkii sanadkii 1961 ayaa mar kale dibaabayn lagu sameeyay waxaana la furay 1962 isagoo qaatay magaca Wood Pancreatic Hospital ilaa waqtigaasi bukaanadu si weyn ay ugu dhimanayeen dadka ayaana aaminsan inuu yahay dhakhtarkani mid ay jimka yeeshay diintu leeyihiin oo ay adag tahay in lagu caafimaado waxaana warbixin lagu sheegay in dad aad u yar ay ka soo nabad noqdeen dhakhtarkaasi dhakhtarka ayaa la xidhay sanadkii 1981 markii ay soo baxday inuu yahay mid lagu dhibaateeyo laguna dhibo dadka bukaanada halkii ay ka noqon lahayd mid dadka lagu daweeyo laguna dabiibo dib markii la xidhay ayaa mulkiilaha hospitaalka waxa uu codsaday inuu dumiyo oo uu ka dhigo dhismo kale laakiin qaanuunku yaala dalka Mareykanka ayaa diiday in la burburiyo dhismayaasha qadiimiga ee wadankaasi waxaana sanadkii 2001 iibsaday qoys jecel meelaha taariikhiga ah ee lagu sheego dhacdooyinka yaab kale dadka ayaa ku sheekaysay inuu ka baxo iftiin Venus habeenkii isagoo waqtigan aan lahayn wax leer ah lagana maqlo codad cabsi iyo uhmaagyo aan la fahmi karin iyadoo dabaqa saddexaad ee hospitaalka laga maqlo codad kuwaasi oo cabsi iyo argagax leh lana fahmi karin meesha ay ka imanayaan dalka ayaa caan ku noqday kadib markii TV-ga American Paranormal Reality Television Series ugu soo bandhigay barnaamijka Ghost Hunters ama ugaarsiga Rooxaanta inuu yahay goob ay Rooxaan dadku ku leen jirtay barnaamijkaas oo sii daayay 6 Oktoobar 2004 waqtigan cusubka uu yahay goob loo dalxiis tago